السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا جيستوري تي في مانتا إن شاء الله وحان ربينا نلاقي بصدو سؤال ير أو إن شاء الله دولاني قارسيو عن إصلاها ويحنيقا عاوين كرتا صدح قيبوضا كسو هذا مناهيد أو كساب سنيد عدسيجي أساسك عدسيكا وأها مغنقليدا وقتي آني يدوغي تواجي هوري وسو هذا مناي أنكيان صوم معنيني تي لبانا tusaale ahayd saddexaadna tusaalihii sii socduu ahaa waxa weeyaan su-aashan waxa weeyaan sidii aan insha allah waxaan isku dayanaa inaan micnayno amba aan helno qodobo yar oo niga caawin karaya saan ugu guuleysan lahayn codsiga maxaan ku raahaydeynay magangeliyada ee dalka Canada ay Djibouti ku degayaan insha allah sidaad u arkaysiin halkan waxaa ku qoran hoosta hoose bidix hadda eegtiin demander l'asile au Canada ne constitue pas une garantie de résidence permanente sayni sheegayaanba kama dhigno codsiga aad qodsanaysid inaad dalka Canada amba lagaa qaabili karayo muhiimadu waxa weeyaan in lagaa qaabili karayo ma aha in bay ka dhigan tahay waxa weeyaan xiliga sidaad u arkaysiin halka kalena edition 2018 baa ku qoran waa xeerarkii ku saabsanaa maxaan ku uraahaydeenay qaybta maxaan ku uraahaydeenay isoo sheeg magangeliyada lagu weydiisanayo amba dalka lagu qaabilo dalka Canada qaxootii caadi ahaan kuwan annaga siyaasad ahaan qofka mowqifkiisa haatanba qodobadii aan hore uga soo hadalnayba kay doontaba ahaato xilligaa waxa weeyaan insha allah saan u badin lahayn tan halkan waxaan isku dayanaa maanta saan hore minigu soo yiri saan bal isku daynaa saan nasiibkii hore baan usoo niri videoyaasha hore inaad haddaad soo daawateen had iyo jeer waxyaabo aan waxaan kusoo celceliyaa ama carabka ku adkeynaya waxaan lahaa waa nasiib weeyaan bal nasiibka ma wax ka bedeli karaynaa waa run ilaahay horta waarksama bini'aadamku horta maxaan ku uraahideynay sida hore naloo yiri horta waxa weeyaan waa anagu waa dad waxaan nahay islaam aan nahay muslim aan nahay ilaahayna aaminsan dadku oo ku dhana tawakkal cala allah bay ku jiraan laakiin ay loobin haddana tacqilna waa laga yiri tacqil wa tawakkal cala allah xilliga caqligii naloo sheegay bal yaan isku daynaa insha allah intaan ka isticmaali kari lahayn iyo sidii aan insha allah aniguna aan waxyaabihii aan ila qaybsan lahaa islahaa waxbay ni biirin karayaan oo maxaan ku uraahideynay si aad ugu guuleysataan insha allah hadduu ilaahay ni gaarsiiyo kolkaad qaraarkaa qaadatiin hore aan usoo sheegnay qodobkii ugu horeeyay ahaa shantii qodobkii ugu horeeyay afar qodob buu kala kacay waa kii ugu horeeyay qofka ku socodin haddana waa qof reer Djibouti oo mowqifkiisa siyaasadeed ahaaneed amba dalka Djibouti uga yimiday amba halkan joogo oo aan ugu geli karin Djibouti weeyaan insha allah xiliga sidii aan ugu guuleysan lahayn taas bay imika ahaan dadku badan yihiin boqolkiiba haddaan khaldamayn waa boqolkiiba 80 ilaa 90 reer Djibouti dalka Canada intaas bay ku degaan imika ahaan waa ta socotana weeyaan taas baa xiliga nasiibka yaan insha allah isku dayaynaa videoguna kuma saabsana un dadka u soo socda Canada kuwa xaggan jooga aan weli isdhiibin way ka caawin karaysaa ku jira iyo kuwa processka ku jira aan weli qaybtan aan dhammaynna way ka caawin karaysaa insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo bal hore aan galno insha allah bismillahi raxmaani raxiim horta insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo waxaan halkan haddaan yar xasuusiyo maxaan ku uraahaydeenay waxaan hore uga soo hadalnay ahayd in dhowaan videoyaashii hore in reer Djibouti loo fududiyo waxyaabo badan dhowaan in maxaan ku raahideenay had iyo jeer waxaan jecelahay khaasatan in xogteeda wax walba han siiyo iyo dadka badiga wax akhriста amba dadka wax maxaan ku raahideenay suqtu maxaan ku raahideenay aan raba inay aad iyo aad waxay ku qancaan inay arkaan raba waxaan isku dayay in aan soo helo maxaan ku uraahideynay waxyaabo ku saabsan maxaan ku statistiga ugu dambeysay 2013 kolka laga bilaabo ilaa 2019 wixii reer Djibouti dad la qaabilay intii la diiday iyo intii isdiibtay isku dhiibtay maxaan ku uraahideynay aan rabtay intii ku degto statistigana arkaysiin wuxuu ku saabsan yahay uun waa qaybta maxaan ku uraahideynay qaybtii ugu horreysay kasoo hadalnay weyn waa point ugu horreeyay parce que shan baan soo sheegnay ahayd shantaas uu kolna 7 ay noqotaa haddaad video kala tagtiin laakiin 7daaba haddaan niraahno waa waxay noqonaysaa point ugu horreeyay ahaa
qof magangeliyo weydiisanaya dalka Canada oo siyaabo shakhsiyaad bay noqon karaysaa baan nidhi in siyaabo badan bay noqon karaysaa laakiin kan wuxuu ka hadlayaa statistics arkaysiin duniyaashan aad arkaysiin insha Allah duwanisiin doona xogteeda halkan ka soo saareen waan tusi laakiin waxay ka hadlaysaa khaasatan waa dadka qofka reer Djibouti ee magangeliyo dalka Canada weydiisanaya ee degaya insha Allah ku weydiistana waa dadkii la yeelay intii la yeelay laga soo bilaabo sanadkii 2013 ilaa 19 intii dad la yeelay intii la diiday iyo wixii doosiye maxaa ku raahideen la dhigtay iyo total waxay ahaayeen bitanaad arkaysiin insha Allah sidana aad arkaysiin balkan waa sanadadii ba ku qoran defeere iyo waxay irahaan waa wixii maxaa ku raahideen doosiye loo diray maxaa ku raahideen qaybtan hay'adan maxaa ku raahideen protection des réfugiés SPR la yiraahdo protection des réfugiés irahaan service ka weeyaan wixii dad amba kolkii maxaa ku amba qofku maxaa ku raahid airportka amba iska soo dhiibo amba soo galo halkan isagoo ardaya aad tugo yaraawrano Djibouti ma socdaalayo mowqifkayga siyaasadeed amba shakhsiyaaneed ba u degaya halkan ay raaho wuxuu doonaba qofku ahaado laakiin magangeliyo ku weydiisanayo waa wixii noombaro dad intii ka dalbaday 2013 hadaan qaadano intan bay ahayd wixii la qaabilay 9 bay haayeen intii la diidayna laba qof laba la diiday wixii ka noqdayna halkan labay noqonaysaa ilaaheen kuwa dad waxa jira kolkol Djibouti baa iska laamaya bay raas ka maanaca oo yagna maxaa ku rahay d'autres raisons iyago ay u gaar tahay irahan waa iska laamaya dadkaasina way jiraan liga qeynti ka qaadatay on instance maxaa ku rahaydeen waxay irahan waa intii dacwadihii de hore si yaalay 2012 wixii ku horeeyay hore doosiyaashii hore si ay hayeen ay traitement gaha ويان تاسنا إن شاء الله يشجعسا وحنا كدري ونيتوس دونا إن شاء الله كده بديلات كيسنا كسو ساري لو كولون ما كدري سي أن نيتوسو statistico pourcentage كي وحي دب pourcentage كا محاك أورا هيداني ليالي سنة كي لابد يكون يصدق تمكي يو pourcentage كي اللي دي سادو أركتين إن شاء الله كل كان pourcentage كم وحينينا وحويان كالكول كان وحي وكالكول فضويان وحنا قاطي نمبر كي هالكن يا قاطي لقدت كي لقابلي يا قاطي نمبر كي توتال كي نواه سني دونك توتال كي ما قاضي وحكو نمبر كم ما قاضي وحكو ديفيزيون توتال كي لقى أنت مو pourcentage كسينية كلنا واسدة أو كلام والله بالديدي واحد كل فني ساون لحي لبعتن واحد كسينية واحد كستم بكسينية بقول كيبا سدد بالديدي أدي بيرتاي ما شاء الله تضبي تضبطنا محاكو راه بقول كيبا سدد إنه والله قابلة كذي أنت بقول كيبا تمام بالديدي أورا كرنا بقول كيبا محاكو راهديني محاكو راهديني سدد إنه والله قابلة أنت كلا وضح حيسنا وأنت دب ولا نقطي أم وأنت ayagu maxaa ku raay doosiyaashooda amba ay ku soo celiyeen amba wax kaliyaaba kale ay sistemogan sidaa ay rahanay ka maqnaayeen insha Allah weeyaan waxaan isku dayo kale maxaan ku raaydanay halkan inaan bas kurbiyar aan yar tuso sida ay maxaan ku raaydanay sida ay kurbiga ugu horeysa darkiiseen tan maxaan ku raaydanay waa intii kuwa kii la qaabilay tawaati la diiday tan waa intii total waa normal xiliga in iyadu badnaato laakiin halkan saad u arkayseen sanadada maxaan ku raahideenay la 13 waa iska fiicnad ma sha Allah dad badan baa la qaabilay saad u arkayseen pourcentage kan kala hadaan ka dhaqaaqno waxa weeyaan sagnaa waa dadka la diiday waa iska yar ilaa 20% ma iska noqon kartaa hadii mooyaan la waxay 15 iska haan karaysaa iska fiican tahay sanadkan 16 waa waqtigii waxaan malayn dadkuna badiga maxaan ku raadinay Canada wallahi aad iyo aad ugu midnay baan malayn amba waxay waayeen siyaabo kale ay ku yimaadaan amba waxyaabo badan oo aan aqoon u lahayn baa jirta oo peut-être maxaan ku raadinay ay dadku aad ugu badnayn waaga iyo mid kalena waaga maxaan ku raadinay waxaan siyaasaduna Djibouti siyaasaduna iyo maxaan ku raadinay waaga aad u sublaamaysahay laakiin dadku ma ogin Canada inay soo qaabisho laga siyaabo badan wax badan baa macnaynaya dad ku badnayn waqtiga inaad eegtiin waxbay total ku xadad yimideen halkan total 26 qof 109 qof arkisin ma sidan bay u socotay insha Allah wixii dad dhigtan intan bay haayeen laga hadaad eegtiin 2016 17 halkan evenement dhacay waxay dadku u badnaadeen halkan oo badiga dadku ay u arkaysiin halka waxay waaga Mareykanka iyo dad badan oo ogolaaday ونصيب درورت والله ما شاء الله واجي انت اسكا عيارنا نصيب كاس waxa dadka reer Djibouti waxa had iyo meel wax walba ku meel khayr noo furta ma amba
maxaa anu khayr baan u arkaya qofku waa dhici karaysa inay ila mabda ahayn laakiin waxa weeye kolka wax dee khayr oo u wanaagsan amba dee dhibaato amba cidhiidhi ay ku jiraan ka saari kareen kolkay arkaan laakiin waa iska galaafanaa had iyo jeer waqtiin xilligaa waqtigan waxaa dhacday waqtigii maraykanku aad noogu furay ahayd 16kii 17kii iyo 18kii sidaad u arkaysiin halkan maxaan ku 16kii aad baa loo qaabilay reer Djibouti boqolkiiba 90 baa la qaabilay 17kii waa haddana way sii socotay laakiin dad badan baa la diiday waa maxaa loo diiday xilligaa waa waxyaabo badan bay dhici karaysaa biska dadkeenu anigu laakiin haddaan siiyo sidaan wax u arkayo waxa weeyaan horta wallahi dad isku soo diyaariyay ma nihin dad u diyaarsanaana ma nihin waan iska imanay uun dacwado amba sidan wax la isku dhiibayo amba sidan loo degayo waxyaabo badan oo aqoon aan walahayn baa jira iclaan badan naga maqnaa dadkuna xilligaa waxyaabahaba badiga ka qayb galay yaan oran karayaa dad badan oo waxyaabaha loogu diiday dadka waxyaabo badan taas baa jirta inkastoo waxyaabo kale oo shakhsiyaada jira oo lagu diidi karay qofka waxyaabo kale oo meeshuu soo maraa dhici karaysa oo lagu diidi karayaa xilliga waxaa dhici kara avokaayaashan amba qaarinadan ay kusoo dhacayaan waxaan ujeedaa avokaayaasha maaha garsoorayaasha juujka ay kusoo dhacayaan iyay ku xidhan tahay kolna qaarinadan ay ku xidhanto qaar aan garanayn bay dadku doontaan ilaa waa videogan waa muhiimadda uu leeyahay waa waxyaabahaasaan wax uga bedeli lahayn insha allah anigana nii caawin lahayd aad u arki lahaydeen sad wax yaabo kaloo haddii wax la sixi karayo maxaan ku urahay saad u sixi lahaydeen amba iclaan aad si ogaan lahaydeen inigoo maxaan ku urahaydeen kolka guriga la dhisayo dee waxa laga bilaabaa asaaska laga bilaabaa xilligaa waa videoyaashan aad arkaysiin asaaskii bay noqonaysaa ma noqonaysiin qof waxba unahayn oo iska imanaya uun oo meeluu ka bilaaba garan lamaa laakiin qof garanaya inkastoo qof walba oo reer Djibouti qaar qaraabo laa jira qaar asxaab laa jira xilligaa nooc walba waan iska leenahay laakiin haddana waxaa muhiima waa in xogta meesheeda loo doonto dhulka lagu garanayo waa qaaranada jira maxaan ku urahaydeen informationyaasha meel kasta yaalaan maanta internetku aniga arki waa maxaan ku urahaydeen mawjada intaa leegeed laga dabaashe lagu dhexdhacaa jirtay kastoo wax ku wada jiro ku dhan iclaanku fiable mode ah laakiin anu insha allah waxaan isku dayay inta la majority aan nii keenayo wax fiable inaan nii keeno insha allah oo boqolkiiba isku day waa bilaadan baan wax khaldami karaa insha allah duulaani gaarsaad u arkaysiin xaggan blog aan ka dhigay 2017kii waa boqolkiiba 30 baa la diiday xilliga waxyaabaha aan soo sheegay in kale oo badan oo insha allah oo lagu diidi karayaa jira aan ma yaho qaaran ma yaho avokaan ma yaho laakiin waa waxa ima qala iyo waxaan u soo joogay weeyaan waxaan sheegayo imika hadda muhiimad waxa weeyaan maanta 2020 baan nahay okay xilliga waa inaan ogaano maxaa dhacay sanadkii hore su'aashta xilliga waa inaad fahantiin sanadkii hore maxaa dhacay maxaa la qaabilay maxaa la diiday boqolkiiba ma sha Allah waxa la qaabilay boqolkiiba 80 baa la qaabilay saad arkaysiin boqolkiiba 20 waa la diiday dad badan laakiin ma aha waxa yimiday sanadkaas way yaraayeen 200 baan isku ornayna hadaan ku darno insha Allah duulaani gaarsiyo muhiimadda videoyaasheeda ku dhan ay leeyihiin waa inaad fahantiin waxa weeyaan korbigan aad arkayseen ee reejega inaan zero ka dhigno tan maxaan ku uraahayeen guushana insha Allah inaan ka dhigno maxaan ku uraahayeen ilaa cirka aan gaarsiino oo ku guuleysano insha Allah weeyaan muhiimaddu taasina waa inaad iclaanka ogaatiin oo waxyaabaha maxaan ku uraahayeen dad baa jira badiga tusaale yar soo qaadanayo dad waxaan u fududahay jira ku guuleysta laakiin kama dhigna adigana waad ku guuleysan karaysaa adigaa soo socda ka xagga joogay kale walaalkii amba naadirkii amba saaxiibkii ay ku guuleysteen maqlena kama dhigno sida anna sidaadoo kale laakiin isku diyaari xilligaa aan horta shakhsiyan waxaan ahay qof the worst case baan ka dhaqaaqa noloshayda waa peak scenario-ga saa u taqaaniin waa kolkay waa wax halka ugu daran halka ugu hooseysa laga dhaqaaqa baske kolkay haddii wax walba ku hagaagayaan taas dhibaato mana moogtay laakiin blogga wax laga dhaqaaqa kolkay waxba dhaqaaqaynba halka hoose la joogo kolka halka hoose la joogo sidee aad uga dabaalan lahayd weeyaan xilligaa si isku diyaarin lahayd oo u yareyn lahayd wixii risk ku keenaya impact ku yeelanaya maxaan ku uraahideenay codsigaaga si aad sharcigaaga aad u qaadatid insha Allah aad ugu wada guuleysatiin ma wada rajaynaynaa aanan nii rajaynayaa khaasatan insha Allah xilligaa waa ka tadna waxayna tusaysaa 2020 waa positive insha Allah inkastoo ay soo yardhaadhacayso laakiin waxa kurbiga haddii waa jeclaan lahaa inaan ogaado haddii qaybka la ogyahay laakiin waxaan jeclaan lahaa shakhsiyan inay tani cirkaa marto tanna dulka gasho
xilliga dadka ku dhan la wada yeelo tanna hoostooda gasho laakiin waa nasiib kurbigana si awarkiisi maaha dadka garanaya amba fahmaya surtout mathématique wax extrapolation ma ku par analogie laguma waxaynayo donc ma garan karayso waxa ku daba xiga ici c'est pas une fonction waxa parametradu wax la ogaan karay ma wax badan bay ku xiran tahay laakiin anagu waxaan rabnaa oo rajeynayna insha Allah rajadu waxa weeyaan sidaan tan u biirin lahayn tan ay weynaan lahayd tanna ku gali lahayd insha Allah duulaani gaar sawarkiisi statisticna halkan ka keenay waxaan inventé maaha waan tus insha Allah wadii la arkiisi isla eegno insha Allah sallamno هذا كلكينو وكان استاتيكا كسو صاري waxa weeyaan inkastoo halkan liyan baan u yeelay laakiin had iyo jeer waxaan isku day dad walba horta liyagan qaar mooda xafid karaysi ma malayn laakiin sidaan ku soo helay inaan nixo yaan jecelahay waxa weeyaan halkan Google ka dhaqaaqayna had iyo jeer Google baan ka dhaqaaqnaa qof walba waxa malayn Google waa haystaa xiliga waxaan ku qoray waxa weeyaan commission sad warkaysiin maxaan ku uraahaydeenay commission aan ku qoray de l'immigration et du statut des réfugiés du Canada lanta maxaa ku immigration-ka iyo qaxootiga dalka Canada yaan ku qoray haga ku qortay waxaan soo baxaya site-koogii baan soo baxaya aan ku klikeyna site-kiisa sad warkaysiinba site-ka ka ku klikeysiin waa kan site-ku waa site-ka official-ka ay leeyihiin had iyo jeer site-ka official-ka maxaa ku raadeen ay leeyihiin internet-ka waxaad ka aragtiin surtout maxaa ku raadeen ku saabsan dalka Canada waxa weeyaan had iyo jeer wayna iska igtiin halka yar qorayna waan igu soo sheegay qofka yar waa muhiim weeyaan waxay ka dhigan tahay waa wax dalka Canada ka socda waa sécurisé waa certificat waa haystaan sécurité waa haystaan dadkii informatique wixii fahmi karay taas laakiin muhiimadu maaha inaad informatique noqotiin laakiin adigu waxa weeyaan adigaaga daawanaya had iyo jeer amba galaya amba isku day doon inaad gashid oo xogta aad ogaatid aad ka soo saaratid had iyo jeer isku day inaad qofka yar aad maxaa ku uraahaydeenay inuu leeyahay site waa muhiim weeyaan taas waa aad iyo aad muhiim tahay insha Allah haddaan ku soo laamo waa kaas sidaas baa lagu soo helay site-ka haddaan ku soo laamo insha Allah haduu ilaahay gaarsiiyo maxaa ku uraahaydeenay qaybtan sad u arkaysiin waxa weeyaan demandku maxaa ku uraahaydeenay waa kan intii ugu horeysay taasoo sanadood bay haddaan dusha neeg waa statistique sur les demandeurs d'asile exactement section-ga SPR bay ilahaan waa qaybta qaybsan maxaa ku raadeen in dadka ay magangelida weydiista ilaaliya ama caawiya saacida waa dadkaas weeyaan statistic waxayeen inta sanadood haddaan imika sanadkii ugu dambeeyay qaato ka soo qaad wadano badan baa ku jira maxaa ku uraahaydeenay haddaan ku qaadano xiliga wadanada ku jira aan waxaan soo qaatay wadankeena Djibouti dalkeena dadkeena reer Djibouti wixii maxaa ku uraahaydeen halkan waxaa arkaysiin inta baa soo qaatay insha Allah saan u wixiyaan tusaya tanna waa titradii aad arkayseen insha Allah duulaani gaarsiyo haddaad ogaatiin titar kastana wuxuu ka dhigan yahay micnihiisa halka yar baad eegaysiin tablogan uu nii micneynaya mid kasta uu nii micneynaya wuxuu ka dhigan yahay defiqi waa kan intay heleen weeyaan accueil waxa ka dhigan waa wixii la qaabilay wixii la diiday desistem wixii retrelo wixii totalkii ansas wax walna way nii micneynaya halkan saabad ku arkaysiin أنا واحد سميه وحويان نقولي فضيدنا محاك وراهيدنا إن جيبوتي كان قاطي محاك وراي وادتاس وحاك وراي تمانري سامون قاطي هاي هدات كسول لامتين وحاك قاطي وفي شير وحاك ورايدنا إكسانا قاطي دونك واحد كومبليكي ما وحوي لكن بس واحد إذا وحوي وانا واحد سكانيتي سنضاد ما سكاني iyo muhiimada ka lahaan waxa rabay inaan ogaado wixii dad la qaabilay imsay u dhanaayeen sanadkii ugu darnaa iyo waxyaabaha keeneen insha Allah yaan isku dayay inaan yaan ogaado halkaas liga waxyaabaha isku dhamay keentay halka ma ku koobiyay anigoo soo qaadanay tan liga kurbigana sida baan ugu wixiyay ahayd sida aad arkaysiin labada liinna aan waa soo micnay sidaan ku wixiyay liga haddaad eegtiin waxaan waa tii haddaan imika soo qaato imika tan baan soo qaatay ahayd sida aad aragtiin insha Allah hadaan ku eego waan soo koobiyay hadaan dib u koobiyo aniga arkaya waa isku eegtaa waa tan waa lambarkii badalkiisii lambarkii kana waa lambarkii xiligaas sidaa ma wixii sanadadii ku dhan xiligaas sidaa ay igu soo saartay maxaa ku raadin statistics ku ogaaday oo nila qaybsaday oo insha Allah aan ugu daray document kaleete haddaan ku soo laamo maxaa ku raadin halka waa
labadii kun iyo maxaan ku uraahaydeenay 19 had iyo jeer waan ku laamiyay waxaan geliyay sanadka kaleete isagana sidaa baan kusoo qaatay sidaa uu documentguna ku yimiday sidaad u arkaysiin oo maxaan ku raasinaariyaashna aad u arkaysiin laakiin wallahi si ma sha Allah si khayr qabto socotaa sanadka kalena waxaan rajaynaynaa 90% tanna tomo ma inay noqoto insha Allah ay ku guuleystaan dadku insha Allah duulaani gaarsiyo بسم الله الرحمن الرحيم أنا كوسي سعنيا أنا كوسي سعنيا حاكو راهديني قيبتا وحويا هل كان إن شاء الله وحنا كسو أرجنيتي استاتيكي وحدة أنتي تضبطي سنة قدام بي سيدا وحنا دعان أنتي لديدة أنتي لقابلة ما سو أرجني إمك وحنا ربي قيبتا إن شاء الله دوله هني جالسيو إن أنا لقيب صدق وحويا هرتاس واحد وقاتين إن waxaan horta 10 kan ka qeybteynay halkan hadan dib soo laamo waxa weyn muhiimadu statistics aan tusii waxa weeyaan inaad ogaatiin waxaan si baadoni wax maaha sahal maaha waa wax inaad soo diyaarsin waa inay barnaamij sensibilisation bani waxayna waa inaad ogaatiin meesha u socotiin iyo inta sanadood sida dadka loo qaablo waa la qaablay waarun laakiin kaamam ay sheeg isku badiyay halkan inaad aragtiin weeyaan waxaan aragsan waa inaad aragtiin ee sheeg baa jira لقواني تاس أي كبرارجو إن دداشيد أو واحد اسكو ديديد إن واحد محاكو راي قنع يسجوش كا قارين كا تقول إن شاء الله دولاني جالس وتا مهم ده إنت كده تنين تن هذا كوسيس عنا هل كان بون نوفيل كان يهايو حويان تاس تو dernièrement وحلو صدري جيبوتي محاكو راهيداني وإني تهاي ضدك عطسية ويدي سنة لقف ودي أو سيدا دوار سيمبا maxaan ku uraahideynay dalka Djibouti waxa lagu qaabilaa tan waa xogteeda waan tusiyana halka ka soo saaray waxa lagu qaabilaa Djibouti waa opinion politique iyo militantisme xiliga waxa weeyaan Djibouti waxaan hore niga soo lahaa ama pointaashiyan hore u soo sheegay saddexdii waxaan soo sheegay qodobadii dadku ay halka ku degaan oo ta ugu horeysa waxaan uga dhigay waxay ahayd halka laga soo saaray sida u ahayd waadii maanta in horta Allah waxa weeyaan dalka Canada wuxuu aqoonsan yahay Djibouti وضل محاك وراهيدين قفكو موقف كيسة سياسة دهانين إنه مدح بنانين أو آدي الله دبعتيو بيو أقونسين سيدادو أركيسين حلقا وتاس بالو قابلان هل كان أو وحويان حق جرتا أو أوفيسيال ويان تاسنا آدي أدوغو ماسين ما شاء الله دالك كندا on les remercie énormément de toute façon pour ça parce que محاك وراهيدين دبعتو دي جرتا ما أنتم بي قابلان دادكو لكن أنا إن موقف كيجا واحد نيو إنفلونسيني ما لكن واحد جت وحيابه رنت هذانا لقم رنتنا هذانا وين عشينا وحي جرينا هذا يو أركان ما هو واحد ضدك كلنا أي كقرصون معها اللي جا حقا إن شاء الله دوله هني جالسيو سادو أركيسين موقف كاسياس ده جبت له أقنصين هاي بل يعني تصو هالكان يدنا كسوسار وماشي هدر طالون كوميسيون قاعد أوجدين ويان هدر جوجل كان كأجند اللي لا عرفتين واتين ويان وحسيس عناس أوفيسيال كا هذه جربوا ستين ويان بارتيجن واحد بارتيجن واحد ويا أخلا يراها ديمون دازيل مون كومبلكس بقى ويان أرثما اللي قاعد تاسي واحد نيع عدينا سهل كان واحد ويان وبروسيس ضد اللي قفوا دي ويان لكن واحد وصدح نيفو ويان بروسيس واحد جرى قريب دعوت وحبل اللي قاعدين ودوسيه جوجان الله إيجو كوكي صور دكتان أو محن كورايدني فورميلر كي أساس كان سو أرجني يدوكيمنت إن شاء الله قدام بأن إني معنين دونه كوكي تاس صور دكتان أي كقنعان أي رهان قفكا ضد كاس وضد كاس على وقنع سنة هاي محن كورايدني وين نقنعسي دعوت دودو ومبهنين إن محن كورايدني أن أودينس أم أويرنو on wax ka weydiino dacwadooda amba aan ka wareysano noloshooda amba waxyaabaha ay yiraahdeen runtahay ama baantahay amba su'aalo ay qabaan inay aad ka qancisiin ay rabaan waajibkuma ah xiliga kuwa kale waxa jira qaybta labaad maxaan yiraahdeen waa qaybtan oo kuwa waxa jira waa taas aan soo sheegay sans la tenue d'audience baa jirta oo kuwan audience ba maxaan ku yiraahdeen dadkan laga audience ma maraanba oo dadka maxaan ku warwaytan wadan adeerkaysiin laakiin muhiimadu ma aha wadana kale inaan tuso aan waa Djibouti waxaan ka hadlayo insha Allah teenina tagina tan waa intaas oo wadan ya taas wad garnaysiin waa maxaan ku warwaan tusay
sida loo soo saartana waad ku klikeenaysiin intaan baad ku klikeenaysiin insha allah aad ku qoraysiin toos buu niga soo bixi baalkaasi insha allah hadduu ilaahay gaarsiiyo qayb kalaa jirta baktigii kale waxa weeyaan qayb kaloo ay iraahaan kolkii qofku intaasoo maxaan ku raahdeynay documooyin amba waraaqadahaas ku dhan ay u dirtiin amba codsigaa asaaskaa waxa ku dhabuucisiin ay u dirtiin waxay qaab ay raahaan maxaan ku raahaya aqoonsiin ay raahaan okay way fiican tahay waxaanay wataan way qancinaysaa waan waa aqoonsanahay laakiin waxaan rabnay audience amba ina aragti yar oo iska gaaban inaan aragno ay su'aalaha ku weydiiyaan xilliga qaybta baan ku jirnaa Djibouti khaasatan oo maxaan ku raahideen anagu ay waa kasaad u arkaysiinba wadanada baan ku jirnaa ay su'aalaha maxaan ku raahideenay oo maxaan loo aqoonsiyahay baan ku jirnaa oo audience waqtiga baa la waxeeyaa kamaanta taw dirtid avukaaga wuxuu ku dhislo waxaysiin adalbatid way ku audience yaro iska yar bay ula yeelanayaan ku yeerayaan way su'aali ka weydiinayaan insha Allah dad si fiican u waxaysa wuxuu ku dheeyeen previyaashaadu aad wax maxaan ku raahideenay iswada waafaqsan haddaad tiri oo qancinaya dadkana haddaad ka tiri dacwadaadu si fiican kugu dhisnayd xilliga maxaan ku raahideenay waa jawaabtaadu waa kolkaaba way ku siinayaan waxay ku ornayaan oo kusoo dhow Canada ay ku ornayaan insha Allah amba way kaasoo daba diri karayaan oo waxay ku dhowr toddobaad kadib way kaasoo daba dirayaan kusoo dhow ku ornayaan insha Allah Canada oo qaybtaabaan anagu ka tirsanahay sidaad u arkaysiin maxaan ku raahideenay xogteeduna halkan baad ka soo saaraysiin had iyo jeerna qofkii yaraaba yaala sidaad u arkaysiin xilliga halkan waxaan ka qeetanaynaa amba maxaan ku raahideenay ka faa'iideysanaynaa puangan waxa weeyaan horta insha Allah fududahay mikaan waa loo aqoonsan yahay saad u arkaysiin su'aalaha dad qabteen ay dad badan isweydiinayeen oo dad badan niga yiraaheena in dalka Canada uu aqoonsan yahay dadka mowqifkooda siyaasadeed Djibouti ka soo tagaya amba xaggan joogay ugu degaya waa cadayntii way horta Allah insha Allah waxaan oran lahaana waxyaabahan had iyo jeer aan nitusayo sidii aan galayo taga isku daya maxaan ku raahideenay waxyaabo badan oo aan video inta laga ka wada hadli kareen baa jira laakiin aad kolka aad insha Allah ka faa'iideysan karaysiin baa jira halkan waxaan soo aragnay labadii point aad soo aragteen insha Allah waxaan horta nitusay statistigu sidoo ahaa wixii dad la diiday taas oo 7 sanadood ugu dambeysay halkan waxaan aragnay in maxaan ku la qaabilo iyo cadeynay oo yadna maxaan ku raahideenay dadka mowqifka siyaasadeed loo qaabilo yaa macnaynay imika guushii see lagu guuleysan lahaa waxa weeyaan horta tii baraarujin bay ahayd saa lagu guuleysan dejaartu waxa weeyaan muhiimad waa inaad garatid waxa ugu horeeya waa inaad garatid muhiimada ay leedahay waxaad ku dhaqaaqaysid badiga dadkeenuna horta kolka imanayaan halkan waa qaar badan waxay yimaadaan ma dhaxgalay meesha ma joogo saan anu qof maxaan ku leeyahay doonaa de leeso miyo laakiin waxa weeyaan waa dadkeen waa dad waxa weeyaan anagoo halkan baa imanayaan laakiin Djibouti ma sii soconaana oo mimto adigoo halkan baad joog aad soo socota laakiin ma garan karayso waxaan inta waqti qaadanayso sidee wax u dhacayaan ismaad soo diyaarin maxaan ku raahideen waxyaabo badan yaa ka jira xilliga soo diyaariya waa muhiim weyn soo diyaarisiin maxaan ku raahideenay oo iclaanada ku dhan ogaatiin wax kasta isku daydiin insha Allah duulaani gaarsiyo wad arkaysiin wixii lagu qaabilayay hortiinay taala oo wad arkaysiin statistics waan tusay 7 sano ugu dambeysay imika waxaan isku daynaa sidii aan nasiib u badin lahayn maxaas la qaban lahaa sidees wax loo qaban lahaa bal isku dayna insha Allah bismillah noo wadayna halkan poyation adarkiisiin insha Allah maxaan ku afar baa imika soo qaatay waxa weeyaan qofka Djibouti maxaa Djibouti ka imanaya Djibouti u badnaadaan wadana kalena ka yimaadaan oo dalka Canada imanaya oo raba inay degaan khaasatan iyagoo codsanaya maxaan ku raaqado ka ugu horeeyay soo sheegnay ku salaysnaa maxaan ku raahideenay mowqifka siyaasadeed waxa weeyaan horta waa waxa laga soo galaa hore baan soo niri waa borderka Mareykanka soo gali karaysiin xuduudaha laga soo galo weeyaan waa labo faalo maxaan ku raahideenay amba ku dhow Toronto online dan khaldameen iyo laakol iyo kuwa kale oo border kale ku yaala way jiraan intii labadaba uga caansan oo laga soo galaa waxa kale oo jira labada dad ka soo galaan iyo qof diyaarad baa lagu soo galaayo dadka kiimida Montreal baa ka soo degay Toronto meesha doontaba Canada ka soo deg muhiimadu waxay tahay qofkaas waa qof
waxaa jira sharciyan kusoo galay oo maxaan ku raahideenay isagoo waraaqadiisa iska sita amba turista kusoo galo amba iskool dugsi isagoo ka dhigay jaamacad kusoo galo amba waxyaabo kale kusoo galo laakiin isagoo yimiday halkan dalka Canada oo maxaan ku raah soo galay oo intaas ku dhamba soo dhaafay oonan iska soo dhiibin intaas oo waxna aan u sheegin aanan la joojin oo soo galay dalka Canada weeyaan haddii lagu xuduudka amba airportka aad iska dhiibtid amba lagu istaajiyo taas ma aha point ugu horeeya ka hadlayo parce que taas haddii lagu istaajiyo amba iska dhiibtid taas kolkaas shuwa ma lihido kolkaa waxay ku siinayaan maxaan ku raahideenay wuxuu ku dhan su'aalaha halkaaba lagu weydiin 15 cishaad haysataa kolkaad ka soo baxdidna waraaqado ku dhan bay ku siinayaan 15 cisho yaad haysataa maalinta ay ku sheegeen 15 cisho kadibna waraaqado ku dhan u celisid weeyaan taas ma waxa ka hadlayo laakiin taan ka hadlayo waxa weeyaan qof soo dhaafay oo dalka Canada yimid oo muhiim weyn ee taas fahantiin xilliga qofkaasi maxaa uu chance u badin karayaa ugu guuleysan karayaa insha Allah codsiga magangeliyada waxa weeyaan il faut faire vos demandes d'asile maximum 2 à 4 semaines après votre arrivée au Canada waa qofka imika ka soo qaad tusaale qof waxa weeye shakhsi reer Djibouti waa arday halkan buu yimid arday buu yimid magaaladu doonaba ha jooga Canada ay ku soo degay xilliga isagoo wuxuu joogay ka soo qaad 3 bilood amba 4 bilood kadib buu isbedelay uu yiri war waxa siday doonto ma ahaato mowqifkiisu sida qaraarku sidoo doonaba ha uga soo go'o wixii ku qasbay maaha waxaan halka macneynayno laakiin muhiim 4 bilood kadib buu qaraar qaatay inuu maxaa ku raahideen codsado magangeliyo dalka Canada way adkaanaysaa su'aalo badan baa lagu weydiinaya xilliga maxaa ku qaaray ku weydiinaya waxaan maxaa 4 bilood qabanaysay halkeed ku maqnayd maxaa kolkii hore haddaad Djibouti uga timid taas maxaa intii hore isku dhiibay kolkii aad ka timid maxaad weydiisay waa su'aalaha lagu weydiinayo qofka dalxiiska sagna u yimid waa sidaa oo kale intuu halkan yimiday maxaa ku raahideenay yar dadkiisa soo arkay bil ama 2 bilood ama Djibouti ku laamayba xilliga waa su'aal way ku weydiinayaan taasna waxay ku oranayaan meesh waa timid dalxiis dibna wadankii aad codsi ka dalbanaysa ama magaliin ka weydiinaysa aad ku laamaysa ayaad ku laamatay waa xilliga waa taasna waa su'aal ku raacaysa xilliga taladu waxa weeyaan halkan qofku kolkuu qaraarku ka soo go'o waa in uuna dhaafin amba uuna ka soo goyn qaraarku waa inuu ogaado waa 2 ilaa 4 toddobaad baad excuse fiican heli karaysaa aad oran karaysaa 4 toddobaad waa inta ku dageysayba inta dad baranaysay waa inta Canada waa dad iska baahsan yihiin ba 2 ilaa 4 toddobaad waa iska macquul weeyaan oo duu iman karaysaa avocado ku difaaci karayaayo waxba xal waa isla helaysin laakiin inay dhaafto ma 2 toddobaad amba 4 toddobaad waa inaad qaraar ku qaadatid aad magangelida ku weydiisto waa qaraarka waa taa waa muhiim weeyaan dad baa iska jira badiga maxaa ku poinyaal ka dambe lagu qabsado dadka xilliga guushana way yaraysaa halka waxaan hadafku waxa weeye como aan chance kin u badin lahayn comment on allait réussir weeyaan ma garanaysaa la demande d'asile au Canada donc ça u guuleysino waa inaan aan maxaa ku raahideenay xeerarkii halkana aan ixtiraano tanna waxa weeyaan waa surtout waxa weeyaan information badiga ay maxaa ku raah wax official ma aan tusi karayo xogteeda laakiin waxa weeyaan waa su'aalo ay surtout avocado ku weydiinayo amba adiga gaadil baa isweydiinaysid kolka adiga gaadil dad places dhigtid qof imika matalan kii ardayga soo qaatay 4 bilood oo ka dambe ku yiri iskoolka iska dhigtay waxa ka dhigay iskoolka inuu iska nacay waxa ka dhigay in iskoolka lacag ku qaaliyo waxa ka dhici karaysa inuu iskool kari waayeba qofka kalena waxa dhici karaysa in tourismigii ay dhibaato amba lacag ka dhamaatay uu doonay inuu dalka ka shaqeysto hadaf kale ka arkayaan moogti laakiin 2 toddobaad hadda toddobaad isku dhiibtid way ka si fiican tahay oo ka kala toddobaadka qaraar ku qaatay 2 toddobaad waa caawimaad qofku fikirayo ويان مثلا إن شاء الله دولاني قرشوا لقى دبعدا سامو كدافي دبعدا لبعض وحويان قفكو كل هالكن يمادو انتاس عن صور شيء بوركا كان كلابا هاتو محاكو راهيدين البوركا هاتو صوغلو محاكو هالكن يمادو وحوان دد كيلور ضد وحويان ضد وحنا يريجي بيتو وضنير وعلى سودا قرنيا يعني والبا قرابو ليه قوم بوليه هاي عدة دون تبا هاتو dadkeena nin waxa la dadkeena maamada tiraahdaa nin buka boqol u tiri baa la irahaa xilliga ka qaraarku naga yimaado badiga dadka uma ula tignaa oo ka dharaana ka noogu dhow amba kii wixii garanaya uma ula tignaa oo ka dharaana war walaalka wadahay waxa rabay inaan codsado magangeliyo dalka Canada bilsido aragtaa asaguna maxaa ku xabu ku sheegay qof kale la hadlaysa kala wax kale ku sheeg Allah hadli kala wax kale ku sheeg kala Allah hadli kala wax kale ku sheeg xilliga muhiim waxa dhici karta kol inay
inay kokol iskhilaafaan ba waxyaabaha lagu sheegay kokol inay isku wadaba dhacaan baa dhici karayso meel qura ku biyo shubtaan xilliga muhiimadu waxa weeyaan aan waxaan igula talinayo qofka walaalka ay qaraabadaada maxaan ku uraahideynay saaxiibka ay ku doonaba ahaado su'aasha ugu horeysay weydiinayso inay ahaato intaad kala tashan maxaan ku uraahideynay magangeliyada sida aad waxayn lahayd horta weydii inuu aqoon u leeyahay qaareen waa muhiim weeyaan qaareenka u tag isaga israaca amba qodda dootbo raac amba kaliga tag waa muhiim weeyaan horeyna waan igu soo sheegay qof walna wixii uu garanayaa loo la tagaa kabo adayka xumaadaan ka kala gaan ka batolaa loo la tagaa dhakhtarkana maxaan ku uraahideynay maxaan ku rabay xanuunsan dhakhtarka loo la tagaa xilliga waa muhiim inaad u la tagtid qaareenka baska talooyin badan buu siinaya waxyaabo badan aan garanayn baa jirta xeerarku way isbedelaan immigration halka waa lagu shaqeystaa waxyaabo ay ku shaqeystaan weeyaan halkan waa shaqo weeyaan Canada sida ogtiina maaha waa Canada waa Ethiopia iska cadcad weeyaan leeliga maaha mana fadaxadeen Ethiopia waxa wajeedo waxa weeyaan reer Ethiopia waa iska jeceliin wada iska jecel iska lacag jecel weeyaan dal Canada waa lacag ma meel ku gaarsiinaysa xilliga waxa weeyaan waa sida inuu ogaatiin horta waxa weeyaan maxaa ku uraahideynay information ugu horeeya aad doonaysiin halkan maxaa ku uraa muhiimka waa qaareen in lagu helo qaareenkan adima waxa lacag bixinaya waa dadka waxba haysan kuwa haysta taas caadi way iska bixin karayaan maxaan ku uraahideynay kuwaas qaareenkaas waa inaad avokaagasina korkaad heshid waa inuu noqdo ku aqoon u leh oo hore u waxeeyay amba hore u caawiyay dad reer Djibouti oo waxa aad sida aad mowqifka aad isku dhiibay inuu aqoon u leeyahay inuu noqdo haday inta dhul la iska jiibo ma badnaan intaan aqoon intaan garanayo waa Montreal waa Toronto maxaan ku uraahideynay badiga dadku meesha dootid joog oo kalena inta conference ka maraan waxa weeyaan hadad Alberta amba tigtay Edmonton amba Calgary amba dhul kale waa iska tigi kartaa mootawadan hadday noqotaba muhiim waxa weeyaan waa in meesha aad degaysid amba aad tegaysid qofka aad ku degaysid amba dadka aad la degaysid amba dadka aqoon u leedahay su'aasha aad ugu weydiisid avocat garanaya waa inaad weydiisid in la helo avocagaas waa saga waxan wada siin doona saga su'aalahan aad qabtid oo ku dhanka qancin doona ku hadi doona waxyaabo badan oo ka dhex saaray waa muhiim inaad taas ogaatiin weeyaan waxa dhici karaysa fiidiyoyaashan waxyaabo badan bay niga caawin doonaan kama dhigna avocat bay bedelayaan laakiin taas garta waa muhiim weeyaan mid kala nigu daraya maxaan ku uraahideynay kolkaan ku dooratina taas laakiin waan jeclaysiinaa qorin bas hadii kale waxaan gelin lahayd maxaan ku uraahideynay confusion bay dadka gelisaa maxaan ku uraahideynay confusion si ni gelin taas waxaan uga dhex saaray surtout avocat-gan horta waxa weeyaan waa inaad confiance na u yeelinaan oran lahaa ani shakhsiyan waxa weeyaan parce que waxa weeyaan qofkan Canada wasaani soo sheegay Ethiopia cadcad waxa weeyaan waa badiga aqoontoodu waa waxa ku xiran tahay waa lacag intuu ku caawinayo intuu lacag ka helayo qaar badan oo maxaan ku uraahideynay codsiga amba aan hore uga soo hadalnay soo tafaasiilinay anila waxaynayn baa jira oo inuu waa waxaysanaysiin qaar nila waxaynay way jiraan niga caawinaya laakiin aan waxaan oran lahaa kom aan worst case ka eegayno ugu daran aan joogno aad iska soo waxayso soo diyaari codsigaagii oo dhan oo adigoo ka soo fikiray soo dhanaysiistay waxba ka maqnayn soo diyaarso laakiin kama dhigno kaaba la diri doonaa waxyaabo badan buu isaguna kugu daray dadkan waxyaabo badan bay kugu darayaan iyagana talooyin badan bay kugu darayaan laakiin waxa ka dhiganta asaaskaaga waa sidataa waxaagina jeebkaad ku sidataa oo kan inta dad Canada soo gelinba haddaad joogtidna waaba isdiyaariso deedo maxaan ku uraahideyn insha Allah duulaayni gaarsiyo waad haysataa inta uu ku biirinayaa xilliga avocat waxa weeyaan waxyaabo badan oo maxaan ku uraahideynay oo dadka ay kolkol maxaan ku uraahideyn way si fiican bay kula talin laakiin mifiibu daanigilay waxa weeyaan waa way dayarsadaan waxaaga maxaan ku uraahideyn adiga daba soconaya adiga daba joogaya dayarsi badan bay leeyihiin parce que dossier lacag badan laguma siiyo dadkan ay caawinayaan xilliga maxaan ku uraahideyn badiga avocayaasha bilaashka dadka la siiyo way yar dayarsadaan xilliga iska ilaaliya koonahaas iska ilaalintuna kama dhigna avocat ka hor imo oo maxaan ku ursagu intuu ku laalaamo kama dhigno wadarkaysiinba avocayaasha halka waa qoon diyaal weeyaan laakiin waxa weeyaan waxa ka dhiganta adu waxaaga daba soco
adu waxaaga maxaa ku si fiican soo diyaarso su'aalo badan isweydii ku laaman iska hubso wax walba weeyaan waa abukaaga su'aalo fiican ula ima meesha isaguna waxyaabo badan uu ka caawin doona insha Allah duulaa in gaarsiyo ku aqoon lana haduu yahay Djibouti aqoon leh waxyaabo badan buu ka fudaydinaya kaasi xiliga méfiance ka ni sheegay yaa ka bixi doonta meesha aaminaad baa imanaysa xiliga dad badan oo soo guuleysay arkaysiin siyaabo uu soo guuleysay isaga garanaya uu niga caawin doona adiguna waad soo diyaarisay insha Allah duulaa in gaarsiyo xiliga waxyaabaha ku dhamba combinaison ga ku dhamba keeni doona inaad ku guuleysatid ay oo nasiibkaaga aad badisay insha Allah qodobka saddexaad hadaan u dhaafo waxa weeyaan s'informer se documenter waa in waa inaad maxaa ku uraahdeenay xogta si haysiin aad xogaal noqotiin aad wax walba intaad iman waa inaad google ka darkaysan hadii jeer aniga tuso gala eega wax kaste fiidiyoyaasha ku dhama soo eega waxyaabo badan aniga caawinaya insha Allah intii ka maqan insha Allah dadka walaalihiina xaqan jooga weydiiyayna waxbay nagu darayaan insha Allah intii kalena informationyaasha internetka bay qaar badan ka buuxaan dokumentyaashu waqti geliya oo istiyaariya iclaan badan soo diyaarsada waa muhiim weeyaan hore baan soo aragnay hadwani soo sheegay statistigu ideal maaha boqolkiiba 99 hadii la yeeli lahaa waxaan ku dhama kama hadalneen moogti laakiin waxa iska jirta in boqolkiiba sanadkii hore ay noqotay 8 ay qaabileen 20 ka la qaabilin sideen aan uga insha Allah ayaguna ay ugu guuleysan lahayn ka dambeyn muhiimadu xiliga s'informer se documenter xiliga halkan liyaan yar oo insha Allah s'informer se documenter liyaan yar oo jeclaaday inaan la qaybsado yan halkan insha Allah nigu daray liyaagana aan yar tusay insha Allah bismillah waa kan waa document haddaad ku qortiin google kana waad ka helaysiin guide demandeur d'asile ma oranaysiin laakiin waa 24 dadka wax akhrista raba inay maxaa ku uraahdeenay ogaadaan wax walba dadka bay caadeen wax u taraysaa laakiin muhiim ma aha inta kaleete oo maxaa ku uraahdeenay waxyaabo badan fiidiyoyaasha ma ku soo sheegaa jira oo isku soo laalaamay intii kalena way ogaan karaysaa waxyaabo badan bay micneynayaan intii laakiin inay rabto wax walba ogaato micnihiisa siday u ogaanayaan giidkan aad iyo aad u niga caawinaya insha Allah wax badan ba ku dhex jira u niga caawinaya insha Allah aad iyo aad u arkhista par curiosité maxaa ku uraahdeenay qoladii hadda aan galnay siidkoogii waa ayagiiba adarkiisiin داو توزين واكيجي وكل ميسين وحنكو رواهدي كوي هذا تور كوميسيون ويان كي يمدي فرنسي ام انجلي واكثر كوميسيون هايدي يعني شيء ما يدي دا كل متين ويدي واسلا يدي واحد كيسو هي جيت كنا يغومبا وحي اللي قاعد توت انفورماسيون هلكن بكل جيران جيت كنا waxyaabo badan mun siinaya uma baahnidin aad waxan maxaa ku raahideenay sida ma quraan ma oo la akhrisanayo waxaan ku raahideen maaha laakiin waxa weeyaan inaad wax walba ogaatid waa muhiim weeyaan oo su'aal walba isweydiisid sidaad xeerkaaga u akhrisatid parce fondmoga darkaysiin waa taas ka soo hadalnay hore u soo bixinay maalmaha loo diro maalmaha loo dirin waxyaabo badan bay micneynayaan halkan ma sha Allah oo maxaan ku raadinay soo micneeyeen intooda ugu badan qaar badan noo soo fulidiyaa jirta fiidiyoyaasha aad iyo aad uga soo hadlay laakiin waan jeclaystay inaan la qaybsado sidaad inuna qof kastana uga heli karay google-ka waa inagoo socdoon kan guide haddaad tiraadid google-ka oo halka ku klikaysid soo qaadano waa ka uu ni soo baxaya même 2020 ma ni soo baxayba laga sidaa uu nigu soo baxay version kii ugu dambeeyay ni soo baxay immigration wuxuu ku dhamaan ni soo baxayba sawaarkiisii primable uu kii ugu dambeeyay wuxuu ku dhamaan maximum laakiin wuxuu ku dhamaan toutes les guides sont décomposés isagoo wuxuu ku dhamaan waxa ka li wixii ku dhex jiro ku dhamaan ku dhex jira waa isla xaqii uun qoladii arkiiseen weeyaan had iyo jeer waa site central waa laba site oo weyn baa jira kalena waa nidsi doonaa insha Allah dulani gaarsiyo laakiin hay'adana arkiiseen waa hay'ad waxa weeyaan caadi ahaanta halkan 18 waa hay'ad maxaa ku uraahdeen waa kuwa komisiyoonaasha waa kuwa qaraar ka qaata dadka soo dhaweynta wayna ka madax bannaan yihiin dawladda Canada maxaa ku uraahdeen si ay qaraarku u ahaato qaraar maxaa ku uraahdeen oo maxaa ku uraahdeen oo dadka aan qof u weexanin soo noqdo ay dadka si fiican u kala saaraan ka madax bannaan yihiin dawladda moos yimaadaan isku bay maxaa ku uraahdeen ay u qaataan madaxweyne maxaa ku raatido haduu waraaqad u soo qoro ninkan meesha maamulana waxba kama qaadanayaan xiliga waa inaad ogaatiin dadkan bas waa inaad muhiimadu waa inaad qancisid had iyo jeer taas ma ku soo celinaa muhiimadu waa soo qancaan dadkaasi oo adiguna degenaanshaagi weeshid oo noloshaada kale aad iska bilaabatid kolka dambe insha Allah
haddaan kusoo laamano maxaan ku iraahdeen pointkii aan joognay oo ahaa s'informer et se documenter tii aan tusay giidkii yaraa iska akhris haddaan rabtiin information kale waxay noqonaysaa halkan haddaan soo laamo kala wad waxaysiin waa qaraabo dadku wuxuu doonaa ahaado dadkaana weydiiya iclaanka taasina waxbay naga taraysaa inkastoo avokaaga ka horeeya oo ka muhiimsan oo ugu horeysa laakiin kolka dambe imanaysaa kolkaa kala tasho oo weydii war bal adiga yaa arrinta soo arkay oo hore u soo arkay oo xoogaala bal iga waran si wax u dhacaya avokaagiina waad ka haysaa isagana wuu soo haday xilligaa laakiin isma contradiction ka laakiin waa ogtahay meeshii qofkii wax garanayay waad u tagtay laakiin isagu imika wuxuu kuu sheegayaa isagana sidii wax maxaa ku uraaydeenay siduu wax ku helay amba siduu wax ugu guuleystay ninka walaalkaaya amba qofkan maxaan ku uraaydeenay kolka information ama iclaanka weydiinaysid isaguna uu kuu sheegay amba dacwadiisa iyo waxyaabo badan uu kaaga sheekeeyay siduu wax ku wixiyay xilliga waa informationgaasina taas badiga dadku way waxayaan taas waa parti waa taas walaakiin waa qayb ka saddexaad weeyaan maaha tagu horeysa anoo ka dhiganaaba fahmaysiin laakiin tagu horeysa ma waa saddexaad weeyaan ta afraad insha Allah haddaan soo dhaafo ta afraad halkan waxa weeyaan waa préparer imika wixii waa is informaysay wax walba waa is ogtahay kaagii waa la xiriirdhay maxaan ku uraahaydeenay dadka laakiin weli aan iman dalka Canada muhiim taasi socon ka afraatan dabaqin waxa ni sheegay dadkaas horta avocado imkaan xiriir lama lahaan kari sidoo xiriir lama leeyahay adigoona maxaan ku uraahaydeenay lacag iska bixinay ma malayn halka iga soo dacwo waxyaabo kale ula tagay ma garanaysa taas waa tu kale laakiin badiga tanaan contacti kan leeyahay waa qof xaggan joogan soo nari soo micnaynay oo soo galay baan niri mid kalena ma ku xuduudda joogana qofku xuduudda joogana kaas avocado dalbanaya taasina oo waa contactiga muskaas noqonaya inta waa xaggan joogan niri taas waa niyar bis si confusion igelin oo niyar cadeynaya bis saad u fahantiin insha Allah aku socono ta afraad wada ku soo noqdo préparez votre demande d'asile au moins 30 jours maxaan uga jeedaa halka waxa weeyaan horta waxa dhacda dadku badiga maxaa ku uraahdeenay way degdegaan qofku horta qofku Djibouti ka imanayo amba qaraar ka qaato waxyaabo badan ba horta dadku yaa naga soo saaro wuxuu doonaa noqdo laakiin hadafyaashi iyo maxaa ku uraahdeen waxa u soconay ba kol isku yaa isdhex gala oo kolba khalad badan halka ka yimaadaan amba dadku ay ku khaldamaan waxa weeyaan ka Djibouti ka imanaysay horta aad islahayd dalka Canada tag waxba u socotay qaarkood muhiimad waxa weeyaan haddaan point ugu muhiim ka soo qaato sharciga oo socotay soo sama xilliga sharciga aad u socda waxa dhacda in kol duruufaha iska jira adoo waxba haysan baa dhici karaya oo dadku waxyaabo ku dedejiya jira inuu ama tusaaladan soo qaato qofku waxa jira dad isagoo dalka Canada iska soo gali karaya oo maxaa ku uraahdeenay iska iman karaya oo airport soo dhaafi karaya oo dad kale iska heli karayo isagoo degan oo maxaa ku uraahdeen nastay oo maxaa ku uraahdeen stress badan hayn oo kala bartay waxyaabihii oo ku loo baahnaa waxaan loo baahnayn oo cilaan badan haya ya isdiibi karaya amba deganaanshaha weydiisan karaya laakiin kale waxa dhacda qofku inuu isiraaho si aad waxyaabo kaba soo qaad amba meel ku dajiyaan amba aad u heshid kaba soo qaad waxyaabo dhici karaysa ma ogtahay amba maxaa ku uraahdeen waa imsiyaash budul la dajiyaal jira dhulka ay ku dajiyaan kolkaaba isdhiibo uu ku degdegaa dhici karaysa laakiin taas hadda ku dhaqaaqdid pointaad kuma baahnid inaad soddon cisho qaadatid bas borderkii baa joogtaa amba airportka baa iska dhiibtayba kolkaas 15 cisho ku siinayaan taas laakiin waxa weeyaan inta aad Djibouti ka soo bixi amba inta aad frontierka isku imin walaalka walaashay waxaan kuu sheegaya waa muhiim weeye isi soo diyaar ha isku imin waa baska waxa weeyaan haddaad kol isku timaadid raggan maalinta waxyaabo aad u diyaarsanin baa jira su'aalo badan ay ku weydiinayaan inkastoo diyaashan aad qaar badan ka arki doontid su'aalayaashu wada dhanba xilliga isku soo diyaari su'aalahana sida aad uga jawaabtay baa 15 cisho kadib waxa ay ku waraqada ku siin baad ku qoray adigoo yiri maalintii ugu horeysay kaarteysad baan gali jiray hadda tiraada cali sabiix baa marka 15 cisho dambe kadib lagu siiyo cali sabiix baan gali jiray amba deganaa amba reer muludeed baan ahaa amba maxaan ku uraahaydeenay carta ya wax lagu yeelay maalintaas ya waxba meelsiihi waa
taas waa wax oo waadix laakiin waxaan ani soo qaadanayo marka kol baa jirta example lada yimaadaan in sheegi suqtu la arko waxa weeyaan dadka badiga kolka xudaa yimaadaan way khalkhalaan amba soo khalkhalayn ba isku soo diyaar laakiin su'aal la weydiinaa hay kolkii waxyaabaha dhibaatooyin ku soo mal xarig ma soo martaa lagu oran ma xarig ma soo eegdaa xarig leeyma xidhin ma wad soo sheekeen dhakhtar ma gelin eegdaa dhakhtar ma gelin xarig luma soo xidhin haddana kolkii halkan timiday formulaarkii baa lagu siiyey waxaa tiri 2 cisha la xidhay 3 cisha la xidhay meel bay wax ka sii yihiin shalay kolkaad meesha joogtay su'aalaha lagu weydiinay waa su'aalihi baa dib lagu weydiinay halkan waa inkastoo ay kuwaas ka fududaayeen oo maxaan ku uraahideen waraaqadaha ay ku qoran laakiin kol baa laga origistray waxan macamam video baa la hayaa inaad adigu waqtiga aad lahayd waxan airportka aan baad joogtay maxaan ku uraahid borderka aad waxan aad ku hadlaysay way ka hayaan oo way ayaan inaad tiri ani leeyma xidhin bari haddaad tirahdid bal ka waran qoladii hay'adii meekaan eegnay commissionki ka madax badnaa dalka Canada haddii aad Britole adana waraaqadii aad formulaarkii codsigaan soo aragnay oo buuxisay hadda ku qortid ninkii waa bari oo kala waa bari haduu yiri maalinta leeyma xidhin aniga ku qornay waa bari waa la xidhay 2 jeer baa xarig la geliyay dhakhtar buu galay waxyaabo badan ma soo sheegnay xilliga oo waxaan inay istagaan weeyaan si dadku qancin karayso qofku waa inuu qanco weeyaan wax macquul waa inaad tiraahdo weeyaan xilligaas waa waxyaabaha iyay confusion ga baa dhaca xilligaas sa iskaga ilaalin karaysid waxyaabahan waxa weeyaan hadii ilaahay ku fuudadii oo nasiib ka yeelatay inaad dalka si fudud ku soo gashid adigoona isdiibin waxna aad codsan iska imo 30 cisho ECC waa bil ECC saad u diyaarsatid waxba aad uga tagin wax meel kasta document ka saadaytid si fiican aad u qoratid su'aal kasta aad weydiisid wax walba isku diyaarisid toutes les informations wax walba halkiisa dhigi xilliga waxa nasiibkaaguna u biiraya aad u biiraya waxa ka fiirsatay weeyaan maxaan ku raahayeen waa dhici karaysa qof bilaadana taa waxba iloobi kar laakiin way yartahay boqolkiiba 90 ilaa 95 iclaankaagu wuxuu haanayaa amba waxaad ku qortay maxaan ku raahayeen aad dadka aad siisay xogta aad siisay oo dadka aad diraysid waxay noqonaysaa ayaguna ay ku qanci doonaan dadka qancinaya waxay noqonaysaa aan khilaafin oo meel ku biyo shubanaya ay noqonaysaa had iyo jeer meel qula wax walba dadka sheegtid dal la heli karay noqon karaysaa in maxaa ku waxyaabo badan ay ku fududeynaysaa dadka xaq u jooga waxyaabo badan talab badan bay kugu darayaan videoyaashana arkaysid waxyaabo badan bay ku biirinayaan amba aad hore uga soo biirsatay xilliga ma garata dad su'aalo qabtin insha Allah waad weydii karaysid insha Allah duulaanka wixii aan ugu dhaamo waan la qaybsasaa hore iniga soo yiri laakiin 30 cisho waa minimumka isisiya oo u samra way adag tahay haddii waxba haysan dhibaato male maxaan ku raahideenay oo maxaan ku raahideenay waxba ku soo talagelin nasiibkaaga iska qaadi waxyaabo kala iska gali laakiin haddaad wax iska haysatid amba aad si noolaan karaysid amba waxaad ku noolaahay ardaydu subtu nasiib iska leeyihiin iyagu qofka jibid ka soo baxo qofku wax u leeyimaada ku wartay taarus leeyimada bil bishaayr meel wuxuu la galo amba qof hadduu la gali karo la gali aqoon u leeyahay hadduu qof u garanayna maxaan ku raahideenay halka uu ku qasban yahay laakiin taas waxayo laakiin hadduu wax iska haysto waxa wanaagsan hore waa naga soo nari waa halkan academy ka darkiisa waxay noqonaysaa 30 jour kiima noqonaysaa waxa way isisiya 30 jour ka isisiya waa muhiim weeyaan waa 30 jour ki hore aan soo nari diyaar wax badan baad diyaarsanaysiin statistigu c'est pas waa aksamo wax ideal ma ahayn 10% mu oolin 7 sanadood arkayseen waa iska sidaa loo socotaa xilliga sanadka dama garan karayno isdiyaarina waxa ka dhigan tahay 30 cisho sa u diyaarsatid isku diyaarisid oo hubkaaga wax walba u hagaajisid wixii proof aad diyaarsatid wax wal oo lagaga baahayo ku dhan saad u diyaarsid badalilkaaga oo maxaan ku raaw noqdo wax maxaan ku raahideenay qofka loo diro insha Allah uu ku soo eego ku qancayaba ay dhacdaba in hore ma soo niraahid in audience kol loogu yeeray Djibouti oo qaar waa dib waxa dhacda okay diraan dacwadooda lagu qancabo oo qanciso oo commissionka qoladii aan soo aragnay kooxdii commissionerada arkaysan ay ku qancaan bayrahan qofkan u yaqaanis kuwa nasiib badan baa iska jira laakiin waxa soo qaadanay waa halka ugu hooseysanigii waxaan ku dadka nasiib ka helay waxa kama dhaqaaqi karayno waxa ka dhaqaaqayna halka ugu hooseysanay halka ugu hooseyso ma ka dhaqaaqayna say maxaan ku raahideen pointation ay u noqdaan wax valida amba wax tala amba wax maxaan ku raahideenay guul qofka u rajeynay bas waxaan objective waxaan hore soo kurbiga arkaysan sida bisku weer dhawaayma saar bisku sida baan kala dheereynaa waan xiliga insha Allah niga waxaan rajeynaya insha Allah
كفائديس وعن وحن إن شاء الله فيديو كله بارتي 2 جنا وان بوينات كلام كدري يو قيب يرو كلام يقدر يدونا إن شاء الله يو محن كوراه دنا لبدي كله فيديو كبيي أمبا دميستري بارتي ديمون دازيل كا يا إن شاء الله دولين جات شو بيانتون إن شاء الله نسوا يعني يسوري دونا كوا كلنا إن شاء الله ويسوس عدان ملك وقت بان وهين قار بدن ملك وصل إن شاء الله سان إن شاء الله نجعل لا تاسنا وحني رجيني إن شاء الله كفى إيدي سوى عن وقت يعني تهاي بوناكسن هبين نتاي هبين وناكسن قدي مالين نتاي مالين وناكسن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.